si haddaba wax loo beerto oo loo soo saaro dalagyo tayo iyo tiraba leh waxaa lagama maarmaan ah in la helo dad kawaadir ah oo cilmiga beeraha aqoon durugsan u leh. tacliinta beeraha waa mid ka mid ah waxyaabaha caadda marin kara haddii la waayana ciidda dhigi kara wax soo saarka beeraha. marka laga hadlo doorka tacliinta ama waxbarashada ama aqoonta ay ku leedahay horumarinta beeraha caadiyan wax kasta oo aqoon ku salaysnayn waxay u badan tahay inaan lagu guulaysan. wax walba aasaas u ah aqoon. haddayn aqoon jirin oo la iska socdo waxay noqonaysaa in horumar in la gaaro iska daayay meeshii la joogay dib loogu. marka aad iyo aad ay muhiim ugu tahay tacliinta marka laga hadlayo dhinaca beeraha hadday ahaan lahayd wax soo saarka ama hadday ahaan lahayd badbaadada. tusaale fiican waxa uu ah marka la rabo wax la soo saaro waxaa loo baahan yahay aqoon wax lagu soo saaro oo la derso sidii iyo habkii wax loo soo saari lahaa lagana xusho habka ugu wanaagsan wax loo soo saari karo iyadoo markaas goolku yahay in la helo wax tiro iyo tayo leh. wax soo saarka beeraha marka si gaar ah looga hadlo wax soo saarka waxaa usii dheer wax la yiraahdo wax badbaado la yiraahdo protection. productionka waa ko wax protection la yiraahdo. haddii aan protection jirin waxaa imaanaysa in productionkaagi uu noqdo hal bacaad lagu lisay oo meel cidla ku dhamaado. marka labadaba waxay u baahan yihiin marka in aqoon loo yeesho iyadoo weliba aan ahayn aqoon iska taagan. maxaa yeelay marka uu waqtigu isbedelaba markay teknolojiyada isbedeshaba waxaa loo baahan yahay in mar alla marka wax isbedelaan mid aqoonta isbedesho sidaas loola socdo. waana wax socdo aqoonta waxaa la yidhahdaa waa dynamic. marka aad iyo aad muhiim ugu tahay haddayna aqoon jirin heerka hadda agriculture gaaray ma gaareen. waa mid caalamka sida Soomaaliya qof ama dal go'doon ama jasiirad ah ma jiro. wadan walba wax yar ha ka helo wax badan ha ka helo adduunku ku xiran yahay. teknolojiyada maadaama hadda waqti hadda la maraayo iska tahay adduunyada wax oo hal village oo kala hal tuulo oo kala ha lagu kala horeeyo laakiin koror aqoonta ay kordhinayso meel walba waa jirta.